caasimada dalka ee Berlin shalay toole waxaa la rabay isku day weerar qorsheysnaa in lagu qaado safaaradda Israel ay ku leedahay Berlin sida booliska uu sheegay iyo konsulka safaaradda markaasi fadhiya. ninka weerarkaasi qaaday ama qaadi rabay waxaa lagu sheegay inuu yahay qof ka soo jeedo dalkaas iyo Libya. weerarkan uu ahaa weerar argagaxiso sida ay warka u dhigeen maadaama qofka uu muslim ahaa. sidoo kale waxay sheegeen qofkaas inuu ahaa 28 sano jir ka soo jeeda Libya yahayna qof magangalya doon ah oo magangalyadiisana la diiday soo galay Jarmalka sanadkii 2022 lana diiday magangalyadiisii sanadka 2023. ninkaasi ayaa waxaa la sheegay sida kaamirada lagu arkay rabayna inuu weerar qorsheysnaa ku qaado safaaradda Israel ay ku leedahay Berlin. almuhim safaaradda ayaa kaamirada ku aragtay ninkaas ku hubeysan hub kadibna wixii waa la fashiliyay. ninkii wuu baxsaday waa la soo qabtay hadeer booliska gacantiisa ayuu ku jiraa. marka qof walbo oo dhibaato geysto Jarmalka waxaa ugu timbaraysan inuu yahay qof argagixiso muslima isku day muslima. okay marka alhana maasad